waxaan helay wicitaan degdeg oo lama filaan ah meel 30 kiiloomitir u jirta ayaa waxa ka soo socda koox aan la garanaynin xawaaraha ay ku socdeen wuxuu ahaa 20 kiiloomitir saacadii amar ayaa lagu bixiyay in dhammaan unuga militariga lagu diyaariyo dagaal buuxa Gatling gaanka ayaa lagu xiray booska infrared sights ayana lagu tababaray jihada hore xog sirdoon ayaa sheegtay in taarkadiisa 5 kiiloomitir u jiraan dhererkooduna uu yahay qiyaastii 3 mitir waxayna soo saarayeen shucaac elektaroonig xooggan isla markiiba salki baas ayaa madoobay taas oo ka dhigtay xaaladda mid cabsi leh waxa la sii daayay eeyda waxaana la shiday filaris si loo iftiimiyo meesha laakiin wax muuqda ma jiraan 300 mitir eeyda ayaa ka qayliyay meel kamid ah geedaha 150 mitir dhammaan askartu waxay neef ka qabeen cabsi iyo feejignaan buuxda waxa lagu amray dagaal dagaalku wuxuu socday habeen dhan ugu dambeyntiina askartii waa la baabiyay kaliya hal badbaaday ayaa la helay oo la helay hoos ku xiran Grizzly Bears 3 markii la soo badbaadiyay wuxuu sheegay in creatorskii aan la garanaynin ay dhabaantii ahaayeen Grizzly Bears boqolaal tiro ah Carcass Bears ayaa lagu arkay meel u dhow albaabka salka laakiin sababta weerarka guud lama garan si loo ogaadana sababta SOS Special Force ayaa loo diray recon meelaha ku xeeran markii ay gaareen German Basi waxaa la arkay dhismo buuxa oo wada meyd ah midna ma lahan dhaawac muuqda dhismo kasta oo la furan xiisada ayaa sii kordhaysa waxaa la bilaabay dhismo kasta faloor in la baaro kadib mid kamid ah askarta ayaa la weeraray markii ay ciidankii u soo gurmadeen weeraryahankii ayaa ka booday daaqada shanaad askartu waxay ku furan xabado si loo joojiyo rounds kala rideen ma joojin karaan weerarka warbixin ayaana ka timid rooftopka wadooyinka hoose waxaa isku diyaarinaya ciidamo tiro badan oo hubeysan oo leh hub culus iyo qalab tayo sare leh ciidamada qaaska xitaa ma qaban karaan weerarka cadawga ayaa dhismaha ka jabsanaya amar ayaa lagu bixiyay signal flariska si loogu helo taageero balse waxay ogaadeen in weeraro isku mar ah ka socdaan dalka oo dhan muuqaalkan oo dhameystiran waxaad ka helaysaa YouTube-kayga cirkan waxaa ka soo dhacaya gantaale aad u tiro badan nidaamyada interceptiga ayaa shaqeeyay laakiin waxba ma aysan qaban dhismayaasha iyo saldhigyada ayaa gebi ahaanba la burburiyay xarunta dhexena nin ajnabi ayaa yimid wajigiisana wuxuu ka saaray scrafka kadib olga ayaa la soo baxday hubkeeda dhammaan askartu waxay hareereeyeen ajnabiga laakiin wuxuu ahaa mid degan oo aan cabsi qabin markuu indhihiisa xiray hub kasta wuxuu u leexiyay olga wuxuuna la dhacay sida ay ayadu tahay isaga wuxuu sheegay inuusan wax dhibaato ah u qabin oo uu fariin u keenay markab ajnabi ah soo socda haddii aan waxba laga qabanin aadanuhuna wuu baabi'i doonaa ajnabiga madaxda ka ah weerarada ayaa la raadinayaa waxa uuna gacantiisa saaray madaxa askariga ayaa galay vision si uu meesha u arko daawadayga sharafta leh intaada ila soo gaartay muuqaalka like saar page-kana follow soo dheh mahadsanid markii vision-ku dhamaaday waxa uu soo saaray goobta ajnabiga ciidamadan waxa ay u dhaqaaqeen meesha markii gawaarida la gaarsiiyay magaalada wadooyinka oo dhan ayaa la gooyay ciidamada ayaana ku dhex xayirmay magaalada waxaana ka jiray xaalad xad dhaaf ah oo cabsi leh weeraryahanadu waxay isticmaaleen hub casri ah iyo xeelado xirfad leh askartan waxay isku dayeen inay dib u dhigaan weerarka cadowgan wuxuu bilaabay inuu dhismaha ka jabsado dhinac kasta signal falaris ayaa loo adeegsaday wicitaanka taageero dheeraada isla markiiba meelaha kale ee dalka waxaa ka dhacay weeraro isku mar ah ciidamada cirkan waxa ay isku dayeen inay gantaalada soo socda ka hortagaan laakiin waxaa goobta ka dhacay khasaare aad iyo aad u weyn dhismayaashani waa la burburiyay qaarna gebi ahaanba waa la baabi'iyey xafiisyadii iyo saldhigyadii dhexe ayaana la burburiyey kooxdu waxay dib u bilaabeen dagaalka hogaamiyaha wuxuu adeegsaday awood uu olga kula bedelo olgana isla markiiba way dhimatay mid ka mid ah askarta ayaa ku dhiiriday inuu weeraro ajnabigu wuxuu ka qabtay si xogan qoorta ninka sheefayn wuxuu furay rasaas ajnabigan wuxuu isku bedelay wajiga aabaha sheefaha wuxuu qaybiyay sawiro fara badan oo ka mid ah naftiisa wayna adkaatay in kala saara midka runta ah askari ayana ogaaday midka saxda ah askartii iyo ajnabigiina waa isku dhacday waxayna ku dhamaatay ayada oo ajnabigii lala kacay